kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada wararka uu idin haya caasimada TV-na waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlay shirka u dhaxeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada isla markaan looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka. xukuumadda Soomaaliya oo si adag u beenisay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegay in xukuumadda iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka ay gaareen heshiis horudhaca. madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ka hadlay kulanka u dhaxeeya dawladda iyo dawlad goboleedyada isla markaana looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo taliska ciidanka xoogga dalka oo ka hadla weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka Jabuuti oo ku yaala gobolka Hiiraan. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imika aatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka dhameystiran. waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay 23 bisha May sanada 2022 haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo soo booqatay channelkeena ha ilaawin in aad subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku share garaynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanina wax walba oo dalkeena dib u celin kara. aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay shirka u dhaxeeya dawladda iyo dawlad goboleedyada dalka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ka hadlay shirka wadatashiga doorashooyinka ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada kaas oo ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. shirkan ayaa waxa isku arkay madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada halkaasna waxaa lagu soo bandhigay qof walba iyo aragtidiisa iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay si gooni u wada hadleen. waxaa si wanaagsan loogu bilowday shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka. madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan uga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkooda. waxaan rajaynaynaa inuu guul noogu soo dhammaan doono shirka muhiimka ah ee miiska inoo saaran. una dhaxeeya dawladda iyo dawlad goboleedyada. shirkan ayaa waxa uu yahay mid rajo weyn laga qabo isla markaan dhinacyada Soomaalida iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka ay isha ku wada hayaan waxa ka soo bixin doono. natiijada ka soo baxday shirkan ayaana waxay go'aamin doontaa sida ay noqon doonto doorashada Soomaaliya ka dhacaysa taas oo xilligan dib u dhac ku jirta. madaxda dawlad goboleedyada dalka ayaa soo dhaweeyay dalabkii kaga yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee ahaa inay soo qaabilaan Muqdisho isla markaana ay ka qayb galaan kulankan. waxaana dhammaan madaxda dawlad goboleedyada dalka ee la dalbay yimaadeen magaalada Muqdisho iyagoo xilligan rajo wanaagsan ka muujinaya kulanka u dhaxeeya dawladda iyo dawlad goboleedyada isla markaana lagu dhameynayo khilaafkii ka dhashay arrimaha doorashooyinka dalka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilligan wuxuu aad ugu dadaalayaa sidii uu kaga miro dhalin lahaa shirka u dhaxeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada isla markaana shirkan uu noqon lahaa mid guuleysta madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyadana ay wada ogolaadaan in dalku uu aado doorasho lagu wada qanacsan yahay. xubnaha dawlad goboleedyada dalka ayaa xilligan waxay u arkaan tallaabada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble in ay tahay mid dalka badbaadin karta isla markaana Soomaaliya u horseedi karta guul iyo barwaaqo. doorashada dalka ayaa haddii lagu heshiiyo waxay noqon doontaa mid soo gabagabeyn doonta khilaafkii xumaa ee u dhaxeeyay madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada iyo midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo dhammaantood ka soo horjeeda qaabka uu wax ku wada madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xilligan rajada ugu badan ayaa waxay tahay in kulankan uu noqon doono mid guuleysta isla markaan dhinacyada ay ku heshiin doonaan. waxaana kulankan laga digayaa inuu noqdo mid la mid ah kulamadii hore ee natiijo la'aanta ku soo dhamaanayay. xukuumadda Soomaaliya ayaa beenisay warar laga baahiyay shirka wadatashiga qaran ee u dhaxeeya dawladda iyo dawlad goboleedyada. saacadii ugu dambeeyay ayaa waxaa baraha bulshada lagu baahinayay warar sheegaya in shirka u dhaxeeya dawladda iyo dawlad goboleedyada kaas oo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka in heshiis hordhac ay ka gaareen madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahin Macalimo ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku beeniyay warar kala baahiyay ee sheegay in shirkaas heshiis looga gaaray qodobo dhowr ah isagoo been abuur ku tilmaamay heshiiska la sheegay inay gaareen ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dawlad goboleedyada. Macalimo ayaa xusay inaysan jirin wax heshiis oo ay gaareen madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada ee ku sugan Muqdisho isla markaana shirka kaliya uu bilowday jawi wanaagsan oo uu ku bilowday. wararka qaar ayaa waxay sheegayeen inay jireen qodobo lagu heshiiyay isla markaana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kaleeto madaxda dawlad goboleedyada dalka ay ku wada heshiiyeen. balse waxaa soo baxay beeninta xukuumadda Soomaaliya ay beeninaysa in wax heshiis uu dhex mar madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo xukuumadda Soomaaliya. hadalkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Muqdisho ay isku arkeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madax goboleedyada dalka kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu dalbay inay yimaadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qaybna ay ka noqdaan madaxda ka qaybgalaysa shirka wada hadallada ee dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada. shirkan wadatashiga ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo ambaqaadi lahaa heshiiskii 17 Sebtembar iyo sidii loo xalin lahaa khilaafkii hareeyay qabsoomidda doorashada dalka isla markaana madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada ay dhammaantood ugu wada qanci lahaayeen. shirkan ayaa sidoo kale inta uu socdo waxaa lagu gorfayn doonaa dadaalada heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta iyo sidoo kale dhamaystirka hannaanka doorashooyinka xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga ee dalka.
shacabka Soomaaliyeed ayaa aad waxay ugu riyaaqeen markii ay maqleen wararka soo baxay ee ku aadan in xukuumadda Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka inay heshiis hordhac ka gaareen arrimihii doorashooyinka ee khilaafka adag dhaliyay balse xilligan shacabka Soomaaliyeed ay rajabeel waxay ku noqon doontaa in xukuumadda Soomaaliya ay beenisay in wax wada hadal oo dhex maray ra'iisul wasaaraha dalka iyo sidoo kale madaxda dawlad goboleedyada in heshiis looga gaaray khilaafkii arrimaha doorashooyinka dalka xukuumadda Soomaaliya ayana waxay shaaca ka qaaday in kaliya ay kulmeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madax goboleedyada dalka laakiin aysan jirin wax heshiis oo laga gaaray qodobadii la isku hayay kuwaas oo loo balansan in la isugu soo laaban doono qaybaha kale ee kulanka dhexmari doona madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada shirkaan ayaan laga rajeynayaa inuu noqdo mid Soomaaliya horumar iyo guul horseedi kara isla markaana uu noqon doono mid badbaadin doona doorashada dalka taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadla weerar ka dhacay gobolka Hiiraan kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka Djibouti ee ka tirsan howlgalka AMISOM ay ku leeyihiin degmooyinka Buulebarde iyo Jallaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka hadla weerarkaas taliska ciidanka qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka taliyaha qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Axmed Maxamed Maxamuud Tareedisho ayaa sheegay in ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM ay iska difaaceen weerarkii kaga imaaday al-shabaab isla markaana ay ku soo qaadeen saldhigyadii ay ku sugnaayeen taliyaha Tareedisho ayaa socdaal degdeg waxa uu ku tagay degmada Buulebarde ee gobolka Hiiraan waxa uu ku amaanay ciidanka sida ay iskaga caabiyeen weerar kaga imaaday al-shabaab waxa uu sheegay in ciidanka khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen al-shabaabkii weerarka soo qaaday ugu dambeyn taliyaha qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Axmed Maxamed Maxamuud Tareedisho ayaa sheegay in la dardar gelin doono howlgallada ka dhanka al-shabaab ee laga sameeyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan dhowr jeer ayaa sidaan oo kale deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay dagaallo u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa Djibouti oo isku dhinaca iyo xubno ka tirsan al-shabaab kadib markii weerar xoog lagu soo qaaday saldhigyadii ay ku sugnaayeen ciidanka dawladda iyo kuwa Djibouti ciidamada Djibouti ee ku howlgala magaca AMISOM ayaa muddo dheer waxay ku sugnaayeen gobolka Hiiraan waxaana halkaas dagaallo culus ay kula galeen al-shabaab intii ay joogeen Soomaaliya ama ay ka howlgalayeen ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa dhawaanahanba waxay wadeen howlgallo qorsheysan kuwaas oo lagu beegsanayo xubno ka tirsan al-shabaab iyo fariisimo ay ku leeyihiin gobolka Hiiraan waxaana qorshaha maamulka Hirshabelle xilligan qayb ka ah in howlgallada xilligan ka socda deegaanada maamulkaas la dardargeliyo isla markaana ciidanka dawladda Soomaaliya gabi ahaanba ay soo gabagabeeyaan fariisimaha al-shabaab ay leeyihiin isla markaana weerarada ay ka soo qaadaan saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa xilligan waxay isku diyaarinayaan dagaal culus oo ay la galaan al-shabaab waxaana gobolka intiisa kale xilligan ka socda howlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Hirshabelle iyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ujeedka howlgallada xilligan socda iyo qorshayaasha maamulka Hirshabelle ayaa dhammaantood waxay yihiin kuwa looga gol leeyahay in maamulka Hirshabelle uu xaqiijiyo amniga deegaanada guud ee maamulkaas kadib markii halkaas ay ka dhaceen weeraro iyo sidoo kale dilal gaadma oo lala beegsanayay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle ugu dambeynna madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay shirka ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu ka hadlay shirka wadatashiga qaran ee ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shirka wadatashiga qaran ayaa waxa looga hadlayaa sidii loo sii ambaqaadi lahaa heshiiskii 17 Sebtembar iyo sidoo kale sidii loo xalin lahaa khilaafka hareeyay qabsoomidda doorashada dalka ee ka dhaxeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada qoraal uu soo saaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu ku sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo doodaha shirka madaxda isla markaana ay noqon doonaan doodaha ku qotamo danta dalka iyo sidoo kale rajada shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Jubbaland ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in dalku uu aado doorasho loo dhan yahay isla markaana shirkaas uu yahay mid u dhaxeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada kana bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka rajada ugu wanaagsan xilligan laga qabo shirkaan ayaa waxa uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaana ka qayb galay madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabelle Galmudug iyo Puntland waxaana soo raacay gudoomiyaha gobolka Banaadir inkastoo uu ka maqnaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo aan ka soo qayb galin shirkaan isla markaana ka qayb galay shirarkii ka horreeyay u dhaxeeyay madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada sababo dhowr ayaa la shaaciyay inuu madaxweynaha dalka kaga maqan yahay shirka u dhaxeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada waxaana wakiilka madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo lagu wareejiyay arrimaha doorashooyinka iyo dardargelintoodaba ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kaas oo xilligan isku dayay in uu dhameeyo khilaafka u dhaxeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada dalka isla markaana dalku uu jiheeyo doorasho loo wada dhan yahay dhammaan ay ku qanacsan yihiin siyaasiyiinta Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada shirkan u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada ayaa waxa uu yahay mid wax badan ka bedelan shirarkii hore ee dhex mari jiray dawladda iyo dawlad goboleedyada qaabka uu ku bilowday shirkan ayaa waxa uu yahay mid aad kaga dheer shirarkii hore marka loo eego sida ay iskugu dhow yihiin madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada rajada ugu badan ee laga qaba ayaana waxay tahay in Soomaaliya markaan ay u jihaysan doonto doorasho la isla ogol yahay dhammaan dhinacyada Soomaalida ay ka wada qayb gali doonaan digniinaha ugu badan ee la soo saaray xilligan ayaa waxay yihiin in Soomaaliya markaan ay lumiso fursadii ugu weyneed oo ah in doorasho ay aado
isla markaana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu yahay mas'uulka xilligan looga dambeeya arrimaha doorashada iyo dardargelintooda. Wakiilada beesha caalamka iyo ra'iisul wasaare Roble waxay ku dhiirigeliyeen in uu dadaalka sii wado isla markaana iyagu ay garab taagan yihiin, waxayna sheegeen in dadaalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu yahay midkii Soomaaliya lagu badbaadin lahaa, isla markaana doorasho dhammaan dhinacyadu ay raalli ka yihiin Soomaaliya ay ka dhici lahayd. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo haysta dhiirigelin aad u weyn ayaa xilligan waxa uu dardargelinayaa howlaha doorashada dalka iyo sidii uu u qancin lahaa madaxda dowlad goboleedyada dalka, kuwaas oo dagaal adag kula jira madaxweynaha dowladda Soomaaliya isla markaana diidan rabitaankii madaxweynaha ay ahaa in Soomaaliya mar kaleeto 2 sano loogu kordhiyo isla markaana doorasho qof iyo cod Soomaaliya ay ka dhacdo. laakiin madax goboleedyada ayaa waxay ku doodayaan in la dhameystiro heshiiskii 17 Sebtembar lagu wada gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii oo aad ka daawanaysaan Caasimadda TV. waad ku mahadsantihiin la socodkii la saanqaadka warkeena.